Munaasabadan ayaa ujeedkeedu waxa uu ahaa soo bandhigista taageeridda beeralayda yaryar oo ku boobay ilaa 24 iskaashato oo 10 ka mid ah ay ka dhisan yihiin magaalada Jowhar halka 14 kale ay ka dhisan yihiin magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Inta munaasabadu ay socotay ayaa beeralaydu waxa ay soo bandhigeen qaybaha kala duwan ee dalagyada ka baxa beerahooda. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Hirshabelle Xildhibaan Maxamed Cumar Ciimoy, Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeellada Dhexe Mudane Axmed Meere Makraan iyo xubno kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda maanta lagu qabtay magaalada Jowhar. Ugu horreyn, duqa magaalada Jowhar Mudane Saalax Muudey, mid ka mid ah howlwadeennada mashruucani, iyo Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Shabeellada Dhexe ayaa munaasabadda ka hadlay. maanta waxaa meeshaan isugu imaaday xaflad loogu magacdaray Agricultural Trade Fair Show. xafladdaas oo loogu talagalay mashruuc ka mid ah mashruuca la dhahaa SRSF oo loo soo gaabshay marka la faahfaahay Support Resilient Smallholder Farming System. dhammaan waxay u baahan yihiin marka in la helo abuur tayaysan in la helo fidiye aqoon u leh agronomista ah xuli kara mirihii karna amba waxaan qabsan karnaa amba jirin waxaan leeyahay hay'adaha wax caawiya wasiirka asagoo wakiil nooga waa inaan horta biyihii na budaacinayo abaarta noo horseeda iyo dhibaatada aan meel u helno. Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeellada Dhexe Mudane Axmed Meere Makraan ayaa beeralayda ku boogaaday wax soo saarkooda wanaagsan, isagoona sidoo kale ku baaqay in la garab qabto si ay u xoojiyaan wax soo saarka beeraha. waxaan rabnaa maskaxdayna inaan maaragtay ku fekerto inaan wax soo saarano, inaan wax samaysano, inaan wax qabsano, inay maskaxdayna ku fikirto. waa haysanaa dhulkii wax laga soo saari lahay, waa haysanaa ilaahay baana makariyey, ilaahay baana na dejiyey. waxaan u baahanaa marka maalgelinta waxaan rabnaa shirkadaha waaweyn oo waddanka ka jira ama bangiyada adduunyada bangiyadooda ayaa dadkooda hormariya, deegaankooda iyo wadamada ay ku dhex yaalin ayay horumariyaan, ase waxay ka soo saaraan si ay ayagana dhaqaalo badan u sameeyaan, dadkuna ay u noqdaan dad maaragtay isku filan oo nolol heesta si ay u noqdaan. bangiyada waxaan dhihi lahay waan ognahay waxyaabo badan oo horumara waa la sameeyey oo maalgelin dadka in la maalgeliyaa sidii maaragtay magaalooyinka qaarkood in dadku maalgelin ay ka jiraan. laakiin waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa dadkayna anaga gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan haysanaa dhulkan barwaaqada oo ilaahay maaragtay uu ku makansiiyey macdan qaaliya iyo wax soo saar qaaliya. waxaan rabnaa shirkaduhu inay maaragtay yimaadiin halkan ay dadkaanu maalgelin u sameeyaan si maaragtay dadkuna nolol u helaan, ayaguna ay u sameeyaan wax faa'iido badan ay u sameeyaan. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Hirshabelle Xildhibaan Maxamed Cumar Ciimoy ayaa waxa uu sheegay in beeralayda xilliyada qaar ay soo wajahaan caqabado, ha yeeshee iyaga qudhowda laga doonayo in ay ku dadaalaan kobcinta wax soo saarkooda beeraha. iskaashatooyinka iyo qofka shakhsiga caadiga beeralayda ah haddii qofka inta loo taga la yiraahdo dhulkaasaan leeyahay, beertaasaan leeyahay, tabartaana ma hayo, waxaan u baahanahay in intaas dhulkan in la maalgeliyo. waxay diyaar u tahay bangiyada maanta dalka ka naqaanay ee jira ee wax qabadka diyaar u ah in ay ummadda maanta wax la qabtaan oo dadkooda garab istaagaan. aad iyo aad ay kamadaas isu dhaweynaya uuna farxay markuu halkaa garab istaagay bangiyada meeshaan soo istaagay. marka waxaan leeyahay Hirshabelle haddii aynu nahay waxaanu nahay dad maanta wax qabsan kara. waad aragteen waadna aragtiin hay-adaha maanta dalka ama deegaanka wax ka shaqeeya waxba ladinka sheegi maayo. horta aragteen waad ka dhegsan tihiin. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, Hirshabelle TV, Jowhar.